xeebta Jasiiro waxa ay dhanka koonfureed ka jirtaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa u soo dalxiis taga dad fara badan oo safar dheer u soo gala xeebta. bulshada xeebta Jasiiro u soo dalxiis tagta waxay isugu jiraan dad waaweyn iyo caruur kuwa oo ay ka mid yihiin dad ka yimid wadamada caalamka doonayana inay qaataan hawada macaan sidoo kalena ku dabaalanaya badda. Maahir iyo Maxamed Cabdiraxmaan waxa ay ka yimaadeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyagoo halkan u yimid inay ku dabaashaan badda isla markaana qaataan jawiga macaan ee xeebta. sidoo kale waxa ay ii sheegeen waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin xeebaha Jasiiro iyo Liido sababta ay u doorbideen inay halkan u yimaadaan dalxiis. xeebta Jasiiro saan wada ognahay waxay ku taalaa qayb ka mid ah Soomaaliya waa xeeb aad u qurxoon dalxiis badan oo ku sugan ha noqoto dalka gudihiisa ha noqoto qurbo joog waxaan dareemaynaa amni oo aad u badan 100% waxaan dhihi karnaa Soomaaliya nabad waaye dadka qurbaha jirana waxaan dhihi lahayn wadankeena hooy ku soo dhawaada waa wadan nabad leh oo ma sha Allah hadana aad u qurxoon saaw aragtaan dalxiis badan ay joogan aniga kamid ah oo ka soo tagay gobolka Banaadir gaar ahaan Holwadaag marka waxaan leeyahay qurbo joogta ku soo dhawaada waa nabad 100%. xeebtu waa xeeb aad u fiican oo waasac ah oo nadiif ah oo waliba aan dalkeena oo aan ku dalxiisno oo ku qanacsanahay sidaa darteed marka waa iska nimaadnaa khamiistii ama jimcada waqtiga aan jaanis u helno dhowr mar hore waa imi maantana waa imi xaafadayda Daynil waxay kaga duwan tahay waa waasac jaanis badanna way leedahay dadka meel ay kula dabaashaan meel ay ku cayaaraan meel ay ku nastaan inta way leedahay marka saasi kaga weynta oo kaga hagaagsan tahay inta badan jimcada iyo khamiista markaan jaanis u helno waa imaadaa waxaan ku doortay inaan markaan halkaan imaado aan ku nasto si fiican aan ugu raaxaysto kadib markaan laabanayana si degan aan guriga ku tago inta badan dib kale ma kulmo. dad badan ayaa safar u soo gala sidii ay u soo gaari lahaayeen halkan oo ah xeebta Jasiiro sababta ay halkan u yimaadeen ay ku sheegeen inay xeebtan ka duwan tahay xeebta Liido jawi ahaan iyo deganaansho ayna ku wanaagsan tahay dalxiiska. cibaado iyo asli waa qurbo joog ka yimid dalka Mareykanka waxa ayna ka mid yihiin dadka halkan u soo dalxiis tagay iyaga oo sheegay in fikirka ay Soomaaliya markii hore ka aaminsanaayeen aysan haatan ku arag balse ay Soomaaliya leedahay goobo qurux badan oo jawiyada lagu qaato mudana in la deganaado iyaga oo Soomaalida kale ee caalamka ugu baaqay inay ku soo noqdaan dalkooda hooyo. wallahi meesha meel aad u wanaagsan weeye wadan Ilaahay nagu banaysto qurux badan weeye aad baan ugu faraxsanahay inaan imaaday marka waxaan leeyahay ma sha Allah wadankaana wadan wanaagsan waaye Soomaalida kale oo ka maqanna waxaan leeyahay wadankiina dib ugu soo laabta ma sha Allah waxaan rajaynayaa inteena nolosha ka dhiman inaan meeshan ku noolaan doono marka hore waxaan ka imid Mareykanka hadeer buu ila qurux badan yahay wadanka mar asoo burbursan baa igu dambeysay oo sidaan aan qurux badnayn oo la soo booqan karin xeebtan quruxda badan laakiin hadeertaan meeshii la rabaa la mari karaa Ilaahay baana mahad ugu celinayna midaas jawigu wuxuu noqday jawi farxad ku salaysan marka ma sha Allah waxaan leeyahay dadka kalena welcome. Mareykan ka imaaday maanta waxaan imaaday inaan arko Soomaaliya si uu eg tahay meesha ku dhashin arkaa rabe laakiin maanta badigu horeys bada ani waxaan ani marka hore inaa rabe Soomaaliya ugu horeyso faraxsanahay waxa la imaado walaalahayga iyo familygayga la imaado xaaladeedu ma sha Allah fiican tahay ها dalxiis hada waxa ka imaanaysa vacation hada maanaysa amal inta la imaada nice spot waa meel fiican waaya. magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa ay leedahay goobo badan oo loo dalxiiso Jasiiro ayaana kamid ah dadka ayaana u soo dalxiis taga maalmaha Khamiista iyo Jimcaha iyaga oo doonaya inay ku qaataan jawi macaan oo ka duwan kan markii ay guryahooda iyo goobahooda shaqo ay joogaan. Safiir Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Jasiiro.